بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku ama yeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah woofiyo inta baahan Allah deeqoynta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa shirka ka furmaya dalka Ingiriiska oo lagaga hadlayo food security. shirkaas waxaan idinka siinayaa background. marka koowaad shirkan lagaga hadlayo food security-ga iyo shirka kale ee lagaga hadlayo climate change-ga labadaas shir oo isku xiran Soomaaliya waxay u tahay target. waxaa jirtay barnaamij dawladaha fakhriga ah ay dawladaha lacagta leh dhaqaale siin jireen deyn ah. arrintaas cabasha waxaa ka keenay caalamka oo dhan mudaharaadyo dhacay 1994kii. mudaharaadyadaas waxaa ka dhashay in deynka la cafiyo maadaama ay ahaayeen waxa deynka bixinaya dawlado. waxaa bilowday initiative kale si arrintaa loogu gooyo oo looga leexdo. waxaa la bilaabay qorshe ah ee lagu talagalay 2015kii baa qorshe la sameeyey ah in deynkii la privatize gareeyo, laga dhigo private kambaniyo shakhsiyaad ay leeyihiin iyo dad taajiriina. barnaamijkan madaxweyne xasan sheekh uu ka qayb galayo. waxaa shirka si aan toos ahayn ee cajalad la sii duubay ah kaga qayb galaya ninka ajendaha ugu weyn ee shirkan ka dambeeya ah ee la yiraahdo Bill Gates. Bill Gates xataa isugu qooro inuu la fariisto prime ministerka Ingiriiska iyo madaxweynaha Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya labadaba waxaa la kulmay oo kulamo gaar ah la kala yeeshay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya. waxaa loo soo diyaarinayay nimankan shirka isaga ah inay qabtaan. shirka waxaa qabanaya oo co-chair isu ah labadaas nin, prime ministerka Ingiriiska iyo madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliya ayuu u gaar yahay laguna target garaynaya. waxaana abaabulayo wada UN-ta Bill Gates oo ku daaban UN-ta, imaaraadka oo ay ka hadli doonto wasiiradda environment-ga u qaabilsan, iyo Ingiriiska. Soomaaliya waa target food security baana laga hadlayaa. waxaa ku lamaan barnaamijka kale ee garab socda ee shirkii November 19 oo ahayd maalinta Axadda ka dhacay Mauritius, Ethiopia ay ka qayb gashay, oo lagaga hadlay maritime security, badda cas iyo badweynta India. shirkaas isaga ah Ethiopia way ka qayb gashay. Ethiopia ciidamay samaysatay bad, maraakiib bay leedahay, weligeeday samaysanaysay, laakiin ujeedaday waagi hore u samaysatay waxay lahaan jirtay casab iyo casmaray haysan jirtay. laakiin markii laga qaaday ciidamadoodii, inkastoo ay jiraan dawlado badan oo landlocked ah aan lahayn bad oo ciidamo leh, maxaa yeelay meelaha badda la yiraahdo international sea ama international waterska la yiraahdo, biyaha adduunka oo dhan ka dhaxeeya bay ka kalluumaysan karaan. wixii kheyraad oo ay kala soo bixi karaan inkastoo dhulku aad u fog yahay ayay kala baxayaan, loomana diidi karo. baddaas aan cidina lahayn ee dhexdhexaadka ummadoo dhan u ahood maraakiibtu marto bay iyaguna ka shaqaysan karaan. wadamo badan baa marka leh. laakiin waxaa soo cusboonaaday in ilaa 2019kii Ethiopia ay ka qayb gashay barnaamijka environment-ga, inay sheegtay inay abuurayso billions of trees, billion geed inay abuurayso sanad kasta. shirkan hadda saddexaad oo kan ku xiga, kan waa kii labaad, kan Mauritius baa ka horreeyey, kana cuntada baa ku xiga. waxaa ku xigay Abu Dhabi midka ka dhacaya Dubai oo ah COP 28. waa conference of parties, waa climate change-ga kulankooda oo UN-tu ay wado oo ka dhacaya imaaraadka. waxaa ka soo qayb geli doona Ethiopia. maxaa khatar ah oo shirkan Soomaaliya kala kulmi kartaa? waa laba dhinac.
dhinac waa dhinaca cuntooyinka iyo wax soo saarka iyo khayraadka Soomaaliya ay soo saarto cuntooyinka aynu beerano oo beeraha ah khatar ka imaan karta waa qodobka labaad waa khatar ku imaan karta hantida iyo maguurtada ummadda Soomaaliyeed sida dekedaha badda khayraadka ku jira iyo beeraha intaba oo dad kale ay yeelan karaan saan idin sheegay barnaamijkii deyn cafiska waa la bedelay hadda waxaa deynka bixinaya Bill Gates iyo Saudi Arabia ama Kingdom of Saudi Relief Agency iyo kuwa lamid ah taajiriin oo waaweyn baa maalgashanaya maalgashigaas hay-ado yaryar baa loo qaybinayaa waxaa la keenayaa abuur waa dhinaca cuntooyinku ka dhibaatoonaya abuur lagu sameeyey laboratory oo chemicals iyo lagu abuuray abuurkaasi si degdeg u baxaa miro badanna wuu soo saaraa chemicals iyo daawooyin buu leeyahay ku jira oo loogu talagalay inay ka dilaan cayayaanka iyo oo uu degdeg u koro wax badanna uu dhalo miro badan uu geed ku dhalo laakiin mirahaas iyaga ah haddaad dabcdi mar labaad inaad beertid ma soo baxayo oo waa dilan yahay half lifekiisa meeshaasaa lagu joojiyey mirahaas khataro badan bay leeyihiin mar environmentigay khatar u leeyihiin oo miraha kale oo afrikaanka ah oo dhulkeenna asalka u ahaa najerka ilaahay subxaana watacaala inuu ku beeray way dilayaan way baabi'inayaan cudurro ay wadaan baa dhirtaa kala baabi'inaya mooskii iyo cambihii iyo liintii iyo boqolaalkii nooc oo khudaarta ahaa oo aynu lahayn waa baaba'ayaan waana guurayaan waxaa la ii sheegay qaraheenni inuu isbedelay oo qaraha hadda Soomaaliya yaalla uu yahay GMO waxaa la dhahaa genetically modified organism cayayaan la bedbedelay DNA-diisa DNA-du waa samayskaaga unugaaga dhexdiisa qayb ku taalla oo DNA la yiraahdo oo wada ma garanaysaa hidahaaga iyo adigu waxa aad tahay wada iyo dhaxalkii aad waaridka iyo hooyada iyo aabaha ka dhaxashay ay ka muuqdaan hadday tahay muuqaal ahaan iyo hadday tahay gudaha caafimaad ahaan iyo hadday tahay fikir iyo maskax ahaan kulligood mid la bedelay organism la bedelay dhir laga beeray ama dhir nooca loo sameeyey ujeedaduna ay in la dedejiyo waad aragteen ukun baa waxay dhalanaysaa digaag baa ukun dhalaysa markiiba ukuntii waa dilaacaysaa markiiba ilmihii ka soo baxay 7 beri 2 bilood waaba neef weyn oo digaaga waa la gadaya oo la qalaya ma arkaysaa waxa noocaasa ayaa la keenay dhinaca marka dhirta iyo dalaga iyo inuu ku yahay dhib waxa u dheer qofkii dhinaca siyaasadda ah intaanan siyaasadda gelin qofkii cunay intaas oo xanuun oo aan la garanayn inay sido mirahani ay sidaan iyo inaysan sidin baa lagu arkaya wadamada waxaa lagu tijaabiyaa masaakiinta ah halkan markii wax la tijaabinayo iyagaa buugtooda ku qoray waagii hore ma sheegi jirin dib bay ka sheegeen xaafadaha dadka masaakiinta degan yihiin dadka danyarta ah dadka ma garanaysaa minoritieska ah ama laga tirada badan yahay madowga waxaasaa lagu tijaabin jiray xabsiyada dadka ku jira baa lagu tijaabiyaa daawooyinka iyo waxyaabaha soo baxa oo dhan africa lala aaday arrintan waxaa ka mid ah qorshaha dad badan oo afrikaani inay dhintaan waa qorshayaasha dacaayadda ka ah dhanka kale oo dadka ka shakisani ay sheegayaan inay runtaa iyan kale been ay tahay cidina ma taqaan laakiin waa lagu eedaynaya waxaa lagu tuhunsan yahay ujeedka ka dambeeya inay tahay inay afrikaanka baaba'shaan adduunkana loo bedelo waa dhanka siyaasadda waan sheegi doonaa waxaa ka mid ah waxyaabaha laga qaadi karo cudurrada ah oo la sheegay oo ay sheegeen hay-adaha caafimaadku allergic reaction dadka cudurrada sensitive-ka ah qaba allergiga qaarkood waa loo dhintaa hadday ku qabato markiiba waa dhimanaysaa haddii aan lagaa gaarin oo aan tuubo lagu gelin oo markiiba intubation inta lagu sameeyo mechanical ventilation machine aan lagugu xirin dad Soomaaliya ay tiraahdo life support aan lagugu xirin degdeg baa u dhimanaysa waxaa ka mid ah cancer waxaa la sheegay Soomaalida Ethiopia u timaada caafimaadka iyo India 4 qof ama 2 in laga helo cancer numberka intaa la egma inaan lahaan jirin waxyaabaha keenay ma ka mid baa cuntooyinku waxaa ka mid ah antibiotic resistant qofkiiyo cudurrada bakteeriyada la yiraahdo
daawooyinka lagu dilo markay ku dhacaan sida hargabka sida TB-da cuduradaas bakteeriyada ka dhasha markay qofka ku dhacaan hargabka qaybna waa virus qaybna waa bacterial kuwa bakteeriyada ah oo cayayaanka noocaas aan viruska ahayn haddii uu qofka ku dhaco bakteeriyadu waa long term mudday haysaa qofka halka viruska uu muddo yar yahay oo lama daaweeyey isaga qofka un baa la maintain gareeya xanuunka laga jabiyaa qandhada waa la maintain gareeya sababta virus daawo looma hayo inta la baarayo inta lab la geeyo la kala jargareeyo la baarayo oo la ogaanayo noocu yahay isla markaasna loo raadinayo daawo disha buu ama qofkii dilay ama ka baxay virusku waa quick wixiisu laakiin bakteeriyada TB-da kamida chronic bronchitis-ka kamida waxaa kamida cudurro badan oo bacteria caloosha kuwa ku dhaca kamida dhul dhaawac jirka kaa gaaray oo infected noqday oo infection uu ku dhacay baa kamida bakteeriyadaas daawooyinka dila oo la yirahdo antibiotics ama antibacterial medications qofkii wuxuu u yeelanayaa resistant waxba tari mayaan daawo kastoo lagu diro cudurka waa haynaya maanta oo dhan waa qufacaya TB-dii waa qabaya dili mayso daawadii dhaawicii gaaray jirka ka gaaray ma baskoonayo yacni cudurrada laga heli karay ka mid tahay changes in human DNA waxaa ka mid a inuu isbeddelka lagu sameeyey mirahan geneticoodii samayskoodii hore oo ilaahiga ah lagu sameeyey oo la khalday inay u gudbaan qofka DNA-diisa waxay keeni karaan markaa in immune systemka ama difaaca jirku uu baaba'o oo qofkii uu si sahlan xanuunada ugu dhacaan waxaa ka mid a cuntooyinka kale iyo dalaga kale inuu dhibaateeyo waxa ay sheegeen oo faa'iidada ah waxa ugu muhiimsan waxa weeye daawo yar baa lagu daraa anaga kaayaga daawaba laguma beeri jirin caafimaad buuna qabay markuu soo baxo miruhu daawo yar baa lagu daraa cusbooyinka dhulka cusbada leh baa xataa laga beeri karaa waxaa ka mid a resilience degdeg uma qurmo inagu cunto freshaan cunaa ciladan marka riskiga ah maxaan u sheegayaa annagoo hay-ado quality baara ma lihin daawo iyo caafimaad ma lihin dhakhaatiir ma lihin waxaasoo dhan qabyaan ka nahay cidlaan ka fadhinaa iyagoo intaas oo dhakhtar haysta baan dadku ogolayn GMO aniga meeshaan hadda aan joogo lagama cuno meelaha lagu cuno waa khasab waa shardi in la calaamadiyo waxaa ka mid a Soomaaliya violationka ka socda waxaa ka mid a maalindhooda waxaan arkay madaxyo ari baa loo soo dhoofiyey can baa la keenay dalkan anigu hadda aan joogo maraykanka oo ku dhegan haddaad cunto kala timaadid lama soo geli kartid waa lagaa tuuraya dibaddaa lagaaga tuuraya dalagna lama soo geli kartid beero ilaa la kaleergareeyo la mariyo oo ay noqdaan kuwa halkan ku yaalla kuwa lamida ma soo gelin kartid absolutely not wixii la ogol yahay waa wax la ogol yahay lakalama ogola maxaa yeelay kuwoodana lama ogola inaad la safartid kuwa kalena lama ogola inaad soo gelistid waxay ilaashanayaan heritage-kooda iyo dhaxalkooda innaga kuweena waa iska dayac madax ari oo qurmay oo intaa tallaagad ku jiray baa Soomaaliya la keenay oo Soomaaliya maxay madax ari uga baahantay iyadaaba ka tagtakeede intay meesha ku qashaan ku jaraan bay uga tagaan maxay madax ari uga baahantay cambe maxaa loogu keenayaa weliba $1 iyo $1 iyo $2 la gaday sabab waxaan jirin maamul waxaan jirin isdabagal hay-addii taya dhowrka gabar madaxweynuhu sodog uu yahay buu geystay ujeeddada loo geeyay waa lacag ciddaa waxaa keenaysa waxaa haye noo dhiib waa u dhiibaya kan keenaya wuxuu keenaya wax dhacay wax adduunka laga cuni waayey meelahaas wax laga soo eriyey baa la keenaya halkan ku dhamgareeya dad xoola abaa joogo iska qaadanaya waa la keenaya haye ii dhib waa u dhiibtay soco containerka waa lasii deynaya muqdishu galaya musiibadaas iyada ah oo aanan u haysan maarayn baa keenaysa inaan dacwo ka qabno dhinaca kale marka dhinaca siyaasadda adduunka waxaa la rabaa in la kontaroolo barnaamijkan reerkan dariska la ah middle eastigoo baabi'inaya ayaa kontaroolaya oo raba inay adduunka gacanta ku qabtaan dhaqaalana ku kontaroolaan waxay soo marayaan markay Soomaaliya oo kale u socdaan imaaraad iyadoo dhaansan oo ordaysa oo aad moodid weylkan koonsan oo dhagal qabta aan lahayn bay soo galaysaa xasan sheekh oo shaqo badan laga qabtay in la rido dowladdii hore oo isagoo kale la keensado baa la soo tuuraya markiiba waa loo yeeraya isagoo gacan jaban buu caalamka maraya oo shir kasta fadhiya maxaa yeelay ma aamini karo cid kale iyaguna ma aamini karaan cid kale qof kale haddaan noo soo dirtid arrintuu naga kala tuurayahay adigu imo baa laleeyahay haddaa aragtid jabnow waa imaanaya ma ujeeda maxaa meesha yaalla
bill gates barnaamijkaas uu ugu talagalay inuu dhulkeena in dhulka lagu qaato waxa weeye waxaa la siinayaa haruurkaas iyo galeydaas iyo sisintaas abuurka ah baa la siinayaa qofkii beeralayda ah u beeranaya markay usoo go'do baa waxaa la keenayaa 5 markab oo wada wixii uu beertay ma sanadka sisin baa baxday sisin free saliid free la keenaya sisintaadii marka macna kuma fadhido waxa cuni kartay adigu cun oo saliid ka samayso wixii kale xoolaha si waxna ha iska baabeen sanadka dambe ma haysatid wixii aad ku maalgashan lahayd mirahaagii kuma cishan kartid dhulkii waa inaad abuur gadataa lacag badanna waa lagaa siinaya daawooyinkii iyo wixii lacagta lagaa siinay abuurka ahaa haddaa awoodi weydid dayn baa lagu siinaya daynkaasaa qaadatay haddii 2 sano 3 sano isku xigta lagaa dilo dareenka iyo jacaylka wax beerashada iyo wax tabcashada maxaa yeelay wixii aad soo saartayba aad suuq u weydid iyo cid kaa gadata halkan wixii ay soo saaraan oo cid private oo ka gadata ay waayaan dawladda ka gadanaysa kulligood dawladda ka gadanaysa waxyaabaha adduunka lagu halaagay oo la geynayo oo adiga taada lagu baabi'inayo waa beeralayda halkan joogta cuntadoodii laga soo jaray baa la keenayaa oo lagu baabi'inayaa taadii beeralaydaadii waxay waayayaan waxay gataan maxaa yeelay WFP baa saa usoo daadinaysa mid free ah markaasaa la kala gadanayaa la guranayaa iyadoo raqiisa maxaad gadaysaa waxba daynkiibaa kugu batay dhulkay kaala wareegayaan waa qorshaha hadda la rabo xasan sheekh inuu saxiixo haddii uu saxiixana uusan hadhow ka bixi karin qorshahan la yiraahdo zero hunger ama gaajo la'aan mashruuca la yiraahdo oo hadda shirkan food security-ga lagu qabanayo Soomaaliya ayaa lagu bilaabaya lagu wadaa barnaamijkan oo dhan Soomaaliya u socda shirkaas aad arkaysid Soomaaliya lagu wadaa waxaan idin sheegay shirkii Mauritius Ethiopia inay joogtay kan dambana ay imaan doonto shirka markay timaado Ethiopia lagu qabanayo Imaaraadka oo gabadhan hadda madaxweynaha dabadiisa hadli doonta oo wasiirka environment-ga ee Imaaraadka ah markay hadasho iyadoo xagga ay tagi doonto oo ka qayb gali doonto shirka la keenayo Ethiopia waxay ku dalban doontaa inay xaq u leedahay in ay ka qayb gasho blue economy oo ah deked iyo xeeb inay xaq u leedahay yaa laga heli karaa Kenya lagama heli karo laguma dhaco Asmara lagama heli karo laguma dhaco nimankaas waa niman ciidan leh Djibouti 5-6 base baa ku yaalo gaalaha Mareykan ku jiro laguma dhaco yaa cidla laga heli karaa innaga seelayno ka heliya waa uu sheegay wuxuu yiri dekadu ayna helnaa qasab sayla waa targetkayga koowaad buu yiri ama bariyaan ku helayaa ama heshiis baan ku qaadanayaa ama xoog baan ku qaadanayaa laakiin waa qaadanayaa dekad waxay wadaan marka buuq baa kacay arrintaas Soomaalida oo dhan ka hadashay buuqaasi wuxuu keenay Imaaraadku inay wadaan in ay berbero sheerka ay ku lahaayeen iyagu ay ku wareejiyaan xasan sheekhow adaa shalay saxiixay barnaamijkan dal ajnabi ah u saxiixday annagoo fog baa noo saxiixday maxaa diidaya kan inuu qaato xasan sheekh hadal ma leh waxna kama keeni karo doodna kama keeni karo waad arkaysaan adduunka waxa ka socda yaana ka dhicinaya marka haddii ay ingiriiskuna taageersan yihiin maraykankuna u aamusan yihiin iyaguna ay xoog ku qabsadaan berbera yaana ka dhicinaya nimanka la yiraahdo Ethiopia iyo Imaaraad oo isku daaban iyo dawladeennii oo laaluushan siyaasigeennii oo gadan yaana ka dhicinaya su'aasha meesha taala waxay tahay yaana ka dhicinaya waxa ku xigta beerihii oo dhan waxa qaatay qof ajnabi ah okay maybe Bill Gates aan ka soo qaado tusaale ahaan so khiyaano la sameeyay ma ahayn oo dawladii Mareykanka meeshii la dhihi lahaa war Mareykan oo dadkan masaakiinta u cafiye deynka ku leediin maxaa yeelay deynkiina hadda aad wadataan way bixiyeen deynkoodii interest-iini baa tirada ka batay ribadiini lama bixin karo marka dalkan miskiinka cafi la dhihi lahaa oo sidii haddaba lagu sameeyay ah oo ay cafi lahayeen hadda waa le ma cafiyeen baa iska leh ninka iska leh haddaad u diidaan inuu qaato beerahaas ku yaala Soomaaliya oo dhan ilaa Jubbaland ilaa Koonfur Galbeed ilaa Hirshabeelle inta beeralayda ah oo dhan ay gacanta ku dhigaan haddii loo diido Mareykanka kula diriraya oo Mareykan oo maxaan ina ka dhaxeeyay nin shacab u ahaa annaga iska leh xoolaha iyagii way waxa kamid ah waxyaabaha aad la yaabka u leh oo ka imaanaya marka Ethiopia ay badda qaadato oo la yiraahdo xaq bay u leedahay inay qaadato way seebay xaq u leedahay
warqadda hadda la saxiixaya waxaa ku jirta zero hunger haddaad saxiixdid oo ogolaatid waddan kasta oo laan looked ah sida uganda baa ku xigta waxaa ku xigi doonaa ruwanda qolyo badan baa isdaba socda qolo waliba qolada ay isleedahay waa jilicsan tahay oo waad ka qaadan kartaa bay ku qabsanaysaa waa in ay idinla wadaagaan khayraadka badda blue economy waxa la yidhaahdo iyo dekad waa inay helaan baa ku xigta taas markay berbera haddii la siiyo haddii loo diido berbero buq ka kaco sayid cabdixoog ku qabsanaya siduu inoo sheegay waana lagu kaalmay cidina ka dhicsana male waxaa dhacaya waad arkaysaan oo adduunkao dhan indhahooda u jeeda dad saa loo xasuuqayo aan la isweydiinayn maxaa adiga marka aad kaga fiican tahay waabad ka sii liidataa baddaas iska quruxda badan oo shaxshaxda ah inta ay joogaan kuwaan maskaxda ka dawaaran oo lacag doonka ah oo iimaanka iyo irsaaqadaba beelay oo waxayiin aan la aqoon oo wada camiilka ah inta ay joogaan yaa dalkan uu gacan kalu gelaya waad maqlayseen ra-iisul wasaarihii ole dadkan waa in laga xaaqaa dalka oo dad kale la keena waad maqlayseen marar badan baan ka hadlay haddana waa ku celinayaa EAC ujeeddada laga leeyahy waxa weeye dalkan in la bedelo dhinacaana marka Kenya ayna kasoo geli doonta iyo qoladan EAC la yiraahdo East African Community business bayna kusoo geli doonaan kuwaana food security bayna kusoo geli doonaan xaq bay u leeyihiin inay helaan meel ay gaajada kaga baxaan xaq bay u leeyihiin adaana saxiixay si marka saxiixaagii honor garee ayna dowlad cusub hadday timaado in wax laga bedeli karo oo heshiisyadaas oo dhan laga bixi karo laakiin qaar badan bay adag tahay in laga baxo waa laga xoog weyn waana lagugula diriraya maxkamadaha adduunkuna waa kaa helinayaan marka waxaa isugu kaa tegaya legally iyo in lagaaga awood bato xagga sharciga dhanka kalena in xoog ahaan iyo physically lagaaga awood badan yahay arrintaa iyada ah qoladan la yidhaahdo sun la baxday scaling up nutrition oo yiri waxaanu oo qoladaas Bill Gates ay leeyihiin waxaa inoo jooga inaga xafiiska ra'iisul wasaaraha nin focal point u joogo la yiraahdo Dr. Maxamed Cabdi Faarax baaritaan yar baan ku sameeyay ninkaasaan helay xogtiisa yani waxaa dhici karta inuu wax ka og yahay backgroundka iyo sirta ka dambaysa arrintan waxaa dhici karta inuu waxba ka ogeyn shaqaale caadi iska yahay dalagaas iyo garanaysa oo sumaysan iyo cudurrada keeni kara iyo baabi'in kara beeralayda oo waad aragteen hadda waxaa lagu wada beeralaydii $100 iyo $200 ayaa loo qoraa magaalooyinka iska soo galaan ma beertaan cid wax tabcataa ma jirto cid kasta wax tabcanaysa waa la baabi'inaya kadibna dhulkii baa la taarget garaynaya geedo iyo sun iyo balaaya lagu afuufaya dhirtii waaba nabaad guuraysaa waxna waa la jarayaayo axmed dhuxulaysta iyo wax la mid ah baa gubaya waxna sun iyo balaaya lagu faafinaya geedo waxaa jira laga beeray Puntland iyo Somaliland oo geed qodax ah oo aan dhirtu xayawaanku daaqin wax faa'iido aan lahayn meeshu ka baxana dhirta kale oo dhan baabi'inaya geedka isaga ah laan hadday ka duusho meeshay ku dhacdo way baxaysaa haddaa goysid in la guba mooye si kale laguma baabi'in karo iyagaa keenay hay-adaa keenay oo ku beeray Puntland iyo Somaliland waxaa la rabaa in dalkaa la nabaad guriyo oo dadka cudurra u dhammaadaan waxna la daadgureeyo dibadaha loo qaado waxna ay la laayo oo xabad lagu dilo markaas dalkaas loo tashado ujeeddada laga leeyahay waa intaa shirkaasi marka khatartaas waxaan baarsiyay madaxweynaha waxaan leeyahay walaalow ha saxiixin waxaadan aqoon la tasho looyaro soo dhex dhig baarlamaanka inkastoo aysan kuwa ku dhaamaajoogine kulli ay yihiin dad jaahiliin aan waxba ka ogeyn waxaa jira looyaro Soomaaliyeed oo caalamka jooga dad aad wax u yaqaan oo legal iyo sharci yaqaanaa jira la tasho ninka maxkamadda caalamiga ka mid ah Cabdiqawi oo kale dad waxaa jira international known lawyers ah la tasho hayr garayso haddana noogu jira maxaa u saxiixaysaa warqad kastoo lagu hoos dhigo maxay tahay balaayadan ku wada waa maxay raqiisnimadan marka shirkaasi food security-ga wuxuu daaran yahay in layna dhaco ilaahay baan ka magan galaynaa insha allahu tacaalana haddaan Soomaali nahay waa ka baxaynaa intaasaan oranayo billahi tawfiiq asalaamu calaykum